بسم الله الرحمن الرحيم isku soo noqod wanaagsan waxaan eegi doonaa ilaahay haduu yiraahdo B11 form waxa la yiraahdaa B11 form waa 12 xaraf oo la soo gaabiyay weeye oo B-da lagu daray xarfaha 12 bay u taagan yihiin B-dana waa P aad arkaysaa haddaba formka laba nooc waa lagu buuxiyaa labada nooc oo lagu buuxiyo waa instruction-ka xagga bidixda ka qabanaya inaad intaad daabacato aad qalin ku buuxiso way dhici kartaa laakiin waxa kaaga haboon noocan labaad oo ah in aad tape ahaan ku samayso oo aad ku dhex qorto waarka gudihiisa waana form mar walba u diyaarsan inuu waar yahay returnable-na oo ah oo in wax lagu qoro diyaar u ah formkan marka waxa weeye wuxuu ka kooban yahay ilaa 35 su'aalood 35 ka su'aalood oo aad buuxinayso waxa weeyaan way kala fudud yihiin wayna kala dhow yihiin su'aasha koowaad waxa weeye waa qaasatan shakhsiga adiga aad tahay iyo inayahaada ayaad ku buuxinaysaa halka midab ku jirta waxa weeyaan qaybta ayada ah maiden name-ka hadii aad leedahay magac caano amse aad leedahay nickname waad buuxin kartaa hadii kale waad iska deynaysaa oo NA ayaa loo isticmaalaa formkan markii aad leedahay waxa ma hayo su'aasha labaad waxa weeyaan waa dhalashadaada iyo maalinta dhalatay iyo bisha dhalatay iyo sanadkii goobta ku dhalatay iyo wadanka u dhalatay iyo wadanka hadda xaadirka u dhalatay iyo su'aasha saddexaad oo ku oranayso qof ahaan shakhsiga aad tahay oo jinsi ahaantaada weeye lab iyo dhadig qofka aad tahay marka mail oo dheer ku qori maysid m baad ku qori ama f baad ku qori midii aad tahay labada dhinaca waxay ka hadlaysaa xawaasha shakhsi ahaaneed su'aasha toddobaad ka bilaabanaysaa xawaasha shakhsi ahaaneed oo adiga aad tahay qofka aad tahay marka qof ahaan waad soo sheegtay waxa tahay laakiin waxa meesha laga hadlayaa itaalkaadu intuu uu leeyahay su'aasha sideed haddana waxay ku dhahaysaa miisaankaadu waa intee marital status-kaada xawaashaada qaas ahaaneed maxay tahay ma iska bulaa tahay oo wiilmaada gursan waad gursatay miya labadaas ku qosaysa adigu hadda qof Soomaali ah tahay waxa kale oo saddexda kale waxa weeye kulama xariirto laakiin marba aad shaqada codsanayso labadaas ku fudud qaybtan kale ayadana waxa weeyaan hadii aad يعني shaqo walba marka safar la gala maadaama safar la gala macaamilo gaar ah wax ku gaar ah adiga hadii jirto caqabad ku noqon karto safarkaada waa inaad sheegataa hadii ay jiraan lixaad inaad waxlaadahay inaad daawo qaadato inay nidaamyo kala jiraan waa inaad halka ku cadaysaa qaybta kale waxay ka hadlaysaa marka su'aasha 12 ka bilaabanaysaa ilaa su'aasha 13 waxay sheegaysaa adi ahaan address-kaada yani waxa laga yaabaa wadankaada inaad ka maqan tahay wadankaada mar walba waa permanent meesha kor ku soo sheegtay nationality-gaada waxa ay tahay waxa laga yaabaa inaad wadan kale u shaqeynayso marka xaadir ah ku tahay waa present address-kaada la dhahaa wadanka marka xaadir ah ku tahay xafiiskaada hadii aad leedahay xafiis telefoon ama xiriir la waad buuxin kartaa ama ayada u shaqeysa email-keeda waad gelin kartaa kalsooni badan bay ku aasaysaa su'aasha 15aad waxay ayadana inoo sheegaysaa يعني qofkan la qaadanayo hay'adan waxay mar walba UN ay saartaa focus qofka iyo inta saaranba ama inta asaga ku tiirsan oo uu biiro inay gacanta ku dhigto hadaba waxa jirto cut line ay UN leedahay baa jirto oo ah qofku dependent-giisu waa 7 weeye hadii 7 ciyaar ay yihiin aad 12 dhasho waxa lagu kafaala qaadayaa 7da xaasaska hadii 3 yihiin hal unba macnaha lagu qaadi karaa waa sharciyada u yaalo marka shaqadaadan caqabad bay ku noqon kartaa hadii aad dhado dependent-gaygu waa inta laakiin aala dadku waxay dhahan maya ama laba iyo hal baad ka sheeganaysaa halkan waa dadka kugu tiirsan iyo magacyadooda ayaad buuxinaysaa su'aasha marka waxaan u imaanaynaa 16aad waxa weeye hadii wax sharci darro ah aad ku dhaqaaqday weliga oo aad ku bedelaysid yani adiga wadankaad u dhalatay hadii ay jirto buux sheeg oo baasaboorka wadankaad u dhalatay wadan aan dad ka qaadan way keeni kartaa waad buuxin kartaa hadii jirto dabcan su'aasha 17aad ayadana waxay noo sheegaysaa hadii ay jirto arrin sharci ahaan kugu keentay inaad adiga dhalashadaada bedesho laakiin arrin siyaasad bay noqon kartaa ayadana waad buuxin hadii jirto hadii kalimada jirta la dhahaa arrimo su'aalo police la xiriirta weeye su'aasha 18aad ayadana waxa weeye UN2 waxay eegtaa dadka ay shaqaaleysiinayso waxay ka ilaalisaa laba isqabto iyo laba wada dhalatay inay ka wada shaqeeyaan ama laba ilmaadeer marka waa iska ilaalin inay wax macnaha adiga relative ah ama qaraabada ah inaadan garanaynin ma jiraan baa la dhahaa
haddii ay jiraan saaxiibkaana waa lagaa ilaalin laftirkeeda cid inaad garanaysa ayaaba layska ilaaliyaa sideeda su-aasha 19aad waxaa weeye meelaha aad jeceshahay inaad ka shaqayso fiilka laakiin ala meesha codsanayso ha ku jirto qodobka 20aad waxaa weeye haddii adiga lagu shaqaalaysiiyo ma aqbalaysaa shaqo ka yar 6 bilood ha waa inaad caddaysaa inaad shaqo u baahan tahay marka tig baa siinaysaa boxka yesta 11aad waxaa weeye ma usoo shaqaysay un weli wax khibrada ma u leedahay marka haddaad usoo shaqaysay haddii kale ayna maya ayaad leedahay marka waxaan imaanaynaa qaybta iyada waa qaybta languageka la iskaga baahan yahay qaybta languageka marka mar walba waxaad isticmaali englishkii baa halkaa ku qoraysaa readka see ku tahay ma isku fiican tihiin marka easily baad leedahay returnka see isku tihiin allahu mustacaan speak see isku tihiin understandingka see isku tihiin nidaamkaa wey su-aasha 23aad waxaa weeye gradeska iyo waxaasaad sheegaysaa qaabka adiga qoraalkaada speed ahaan u yahay ayaad buuxinaysaa halka ku buuxinaysaa iyadoo aad type garaynayso isla su-aasha waxaa ku hoos jirta sidee dhinaca xafiiska lagu geeyo wuxuu leeyahay matalan wuxuu lahaan karaa fox buu lahaan karaa wuxuu lahaan karaa ma garanaysaa aalado gaara oo gaara sida internetka buu lahaan karaa photocopy buu lahaan karaa scan buu lahaan karaa waxaad isticmaali karto khibrada u leedahay xafiis loo isticmaalo waa inaad halkaa ku buuxiso waxaa kaloo jira iyadana 24 su-aasha ah oo qaybtan waxay aala sheegaysaa khibradaada dhinaca education backgroundka ayay sheegaysaa a iyo b waa loo kala saaraa eedu marka waxaa weeye waa wixii university level wixii b ana waxaa weeye waa wixii training iyo secondary iyo waxaasaad ku buuxinaysaa midna ogsoonow secondary wax ka hooseeya waxbaa ku qoran trainiyada unbaa halkaa ku buuxin doontaa su-aasha 25aad waxaa weeye haddii wax khibrada aad dalkaada u qabatay oo arrimaha bulshada ah waad ayadana 1 iyo 2 iyo 3 waa sheegaysaa su-aasha 26aad waxaa weeye haddii un to-ala waxay samaysaa ee qadarisaa publication haddaad samaysay haddii aad wax qortay oo internetka laga heli karo ama aan laga heli karin oo ciwaano leh sida theesiska aad jaamacadda ku dhamaysay oo kale waad ku attach gareyn kartaa haddaad doontaa meesha iyada haddii kale waxaad samayn titlekii baad ku qoraysaa meesha waxaa kaloo jira markaa su-aasha 27aad ayaan tegaynaa marka waa employment record wey qaybta waxay ka hadlaysaa qaybta khibradda ayay ka hadlaysaa khibradii baa laba loo kala saari taa hadda haysid oo a ah iyo tii aad horey usoo qabatay oo previous oo p ah ayaa loo kala isticmaalay waa labadaa nooc midda kale oo hadda aan tegi doono waxaa weeye qaybta ayada ah faahfaahin dheer bay leedahay laakiin mar walba muhiimad waxaa ka raacdaa descriptionka shaqadaa qabanayso waa inayna hadday la halmaalaan salariga iyo waxaadina waad kusoo qori doontaa waxaan tegaynaa finally tegi doonaa su-aasha 28aad oo ah haddii adigu aad khibrad u leedahay wax civil servant ah waa waxyaalaha un ay aada u jeceshahay inaad dowlad usoo shaqaysay arrimo bulshada wax ka garanayso waxaabaad leedahay marka ala waad buuxinaysaa meesha haddii kalena mayaad leedahay ada garanin 29aad waxaa weeye shaqadan ama waxa lagu shaqaalaysiinayo ama arrintan wax su-aala ma ka qabta adiga waa maya interviewga la dhaha su-aal iyo waxbaan dadka weydiiya laakiin formka maya referencega waa halkaanaad ku buuxinaysaa iyadu laakiin referencegaada iga xasuusno ha ahaato cid aad adiga isla soo shaqayseen hayad iyo meelay noqotaba aad iskala soo shaqayseen waa inay ku jiraan khibradaha meelaha soo martay waa inay sal ku leeyihiin dadka halkan ku qorayso tan marka 11aad waxaa weeye wax kale oo information oo yacni adig ku caawinaya hadday jiraan ama nationalitygaada la halmaala halkan dhig allahu mustacaan qaybta ugu dambaysa baa soo gaarnay formkan waxaa weeye in adiga hadda ka hor lagu xiray ama wax arrimo aad dhex gashay lid ku ah amniga hadday jiraan haa ama maya laska dhahaa su-aashan 3aad waa su-aal adiga afeefo lagaaga dhigayo allahu mustacaan afeefadaasay noogu eg tahay waa formka saas ku dhammaaday daydkii baad qori waa saxiixi assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu